dadkaad la dagaalaysaan dadkiina miyaanay hayn dalkaad ku dagaalaysaan dalkiina miyaanu hayn dantaad u dagaalaysaan dantiina miyaanay hayn dagaalkaad dagaalaysaan miyaad ku dawoobaysaan dadkaad xil u dhiibateen haddaad dood ugu dartaan haddaad madaxdiina cay dushooda ku hoorisaan dayacan ma dulqaadataay durbaba qarankee dushaay hadmay ku dadaalayaan inay dowladnimo corshaan haddaad nabad diidantiin miyaad nolol doonaysaan haddaad nabar doorateen miyaad naxdin diidaysaan intii nabar doorato naxdimo u dagaalantaay inagu dooni mayna ee duurkiina la aada taas waxaan rabaa massajkayga ugu dambeeya inaan fanaaniinta Soomaaliyeed uga faa'iideeyo shiina uu halkaa la fadhiyo gabadha heesta soo qaaday walaashay Phyllis waa gabar Soomaaliyeed mar rabo inaan ku xadgudbo dee shakhsi ahaanteeda iyo inaan wax ka sheegana ma rabo laakiin ayada waxaan rabaa si gaar ah inaan ula hadlo oo ku iraahdo walaashay Phyllis marka heestan soo qaadaysay adoo hurday miyaa inta lagu toosiyay miyaa lagu yiri hees baa lagu sameeyay qaad maada ogeyn miyaa macna waa iska qaaday waa hurday show hurda laga kiciisa lagu yiri heesa lagu dhibay qaad adoo dabcan hurdadii aan wali ka kicino wajiga dhaqana dabcan heesta waa soo qaad saas aan umaleynaya anoo kugu xadgudbay walaashay baa tahay gabar Soomaaliyeed laakiin sidaan ma ahayn inaad u dhaqanto sidaan ma ahayn inaad sumcadaada iyo afkaaga iyo codka macaan Ilaahay ku siiyay aad madaxdaada ugu bahdisho shiina adigana waxaan ku leeyahay walaalkay kulay missionka aragtay waa ku fulay waxay ahayd missionkaagu in ay dad badan ku bartaan dabcan inaad boorkii iyo hurdadii aad ku jirto inaad ka kacdo oo aad dib channelka aad macnaha usoo cusboonaysiiso views badan heshay aad muhiimadaadu taasna waa gaartay intaas ku ekeysay khayr Allah ku siiyay intaasaan kaaga tagayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan si guud u leeyahay si gaar ahaaneedba isku dhaqan dhar iyo isku diir ahay isku dhiig dhacaan isku diin ahay afku dheemanay dhalashii xigto Soomaaliya dhicin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمك بدن كسر وهذا مركلي مقال عصب المقال كان ما توحى وجه الله يا وياها عصب وطبعا بريو قد بي فرح كولا قناة عيب يفول حمو يمقع حمو يسمع الدرو أي كسر تنايان شرفتي وناقي عزي ومدى الصوماليات ككسبدين وياه طبعا أي وياها عصب هاين waxaad moodaa hadda waayihii cusbaa markii ay kala tageen oo dad fara badan ay ka baxeen oo fanaaniin badan ay dabcan ay kala dhumeen waxaad moodaa in maskaxdii iyo deganaantii iyo aragtidii fiyoobeed ay wax ku fiirin jireen ina waayahan dhumaysaad moodaa taasna waxaa daliil u ah oo kale dabcan caddayn u ah ood mar walba aragtaan heesba hees intay ka fool xuntahay oo ka qaab daran tahay bay soo saaraan taasna waxaa markhaati ka sii ah in dareenka shacabku ay heestaas ay inaba ay ka dhaadhic weyday sidaas laajligeedna hees walba ay soo saaraan ay waajibka ay leeyihiin ay marsiyaan oo ay dabcan dislike iyo kamaana helin ay ugu jawaabaan sharaf darradaas iyo sumcad darrada ay ku sagontiyeen magacii iyo sharaftii iyo qiimihii ummadda Soomaaliyeed dhexdooda ay ku lahaayeen baan rabaa maanta inaan muuqaalkaygaan hal iyo laba uga iraahdo sidoo kale waxaan rabaa inaan ku siiyo jawaab ayaga aan si gooni ah aan ugu durayn laakiin aan rabo wixii ayaga iyo wixii la mid ah aan dabcan aan rabo inaan ugu jawaabo marka hore waxaan rabaa inaan idin sheego waayaha cusub guud ahaan waa fanaaniin Soomaaliyeed oo walaalaheen ah waa fanaaniin aan wada taageerno waa fanaaniin qiimo iyo qadarin iyo xushmad ba naga wada mudan xataa gabadha heesta soo qaaday oo Phyllis iyo shiina odaygeeda ah oo ereyada u dhiibay labaduba waa labo qof oo walaalaheena oo Soomaaliyeed taas waxaan rabaa inaad marka hore ogaataan taas inuu shaki ka gelin baan rabaa midda labaad oo aan rabaa inaad ogaataan waxay tahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee marka horeba soo aasaasay waayaha cusub fikir ku lahaa in waayaha cusub ay aasaasmaan ama ay jiraan waa fanaaniin aan wada taageerno oo uu kamid yahay dalmaryare uu kamid yahay Dikriyo fanaaniin kale aad u fara badan ay kamid yihiin dabcan oo xataa la fool uu qayb ka ahaa heesii la soo qaadi jiray xataa inuu ku jiro aan jeclahay haddii aan wax qaldayn marka ugu horeysa waxaan rabaa horta waayaha cusub inaad taas aniga dareen ahaan maxaan waayaha cusub ka aaminsan aniga xanad ahaan inaad ogaataan waayaha cusub waa fanaaniin Soomaaliyeed waa fanaaniin xushmad iyo wanaag iyo sharaf iyo ciziga mudan laakiin waxaa jira markii ay waayihii cusub sidii ay ahaayeen isugu dumnaayeen ay dabcan halkan waxaan rabnaa inaan sidoo kale ka baranno midnimo la'aantu faa'iido darrada ay keento markii aysan dadku midnimo
iyo wada jir haysan oo aysan isla wada joogin oo aysan isgarabsanayn faa'iido darrada ay leedahay waxaa markhaati cad kuga ah in waayaha cusub ay maanta ku farxalanayaan wasaq iyo bilaacad ay maanta ku farxalanayaan cabayaan ba taasaa bahalkii kuga ah lianno haddii ay joogi lahaayeen oo ay maanta fanaaniintii soo as-aastay ay qayb ka ahaan lahaayeen ama heesaha hadda lasoo saarayo waayaha cusub channelka lasoo gelinaya ay tashi ku lahaan lahaayeen sidaan ma dhacdeen ee waxaa dhici lahayd in si wanaagsan ummadda soomaaliyeed wax loogu fasiro ummadda soomaaliyeedna loo soo gudbiyo aragti fiican haddii mucaadaraad ay jiraan oo wax lagu mucaaradayana dabcan qaab saliim ah oo aragti fiyow in lagu mucaarado dowladda soomaaliyeedna wixii ka qaldanna loogu sheego wixii u saxna loogu sheego anigu shaqsi ahaan qofna ma taageeri bulshada udhexeeya halabuur baanahay nabadii nololna ma taageersan nabadii nololna ma diidani laakiin anigu muhiimadeedu waxay tahay anigu waxaan taageersanahay dowladnimo waxaan taageersanahay shacab aragti fiyow qaba waxaan taageersanahay nidaam iyo in horey loo socdo waxaana diidanahay wax ummadda soomaaliyeed dabar iyo inay ku laabato meeshii ay ka timid sanado ka hor inay ku laabato wixii u horseeday dhan baan diidanaha oon kasoo horjeedaa waxaana qayb ka ah waayaha cusub heesaha ay soo saaraan inay yihiin wax dib noogu celinayo wax aan soo dhaafnay iyo isqabqabsi iyo qabaleysi iyo arrimo aan horey uga soo gudubnay taa markaan kasoo gudbo waayaha cusub waxaan rabaa inaan tooshka in kugu ifiyo waayaha cusub ninka hadda guddoomiyaha u ah oo jooga shiine waa ninay dowladda hadda soomaaliya ka jirta ama madaxweynaha iyo adugu hadda madaxda soomaaliya hadda joogta oo dowladda nabadii nolol waa nin ay qaraabo yihiin haddiina qofka uu shaqsi qaraabo ay yihiin uu si wixii uu rabay uu ka waayo midda saxdaan rabaa inaan idin dul istaago oo haddii anaan waxba boor saarsaareen qofka uu qaraabada leeyahay ama in adeerka leeyahay sida uu rabay ama uu dantiisu ahayd hadduu ka waayo dabcan waxaa imaanaysa in la isdiido waxaa imaanaysa in qofkaan wixii uusan jeclaysan marka uusan jeclaysan waxaa imaanaysa inuu caloosha ka hadlo qofkaan oo wuxuu raba isaga hadlo marka taas waxaan rabaa inaysan yacni ina ku dirin dowladdiina haddaad dowladda taageeriseen haddaad dowladda jeclaydeen haddaad dalkiina soomaaliyeed aad jeclaydeen inuu dhismo hadday aad rabtay dadkiina soomaaliyeed inay hagaagaan haddii aad rabtay in waxbarasho la helo haddii aad rabtay in caafimaad aad heshid haddii aad rabtay in dowlad hagaagsan aad heshid haddii aad rabtay burburka iyo qaraxa iyo dhibaatada iyo isdilka soomaaliya ka jira in laga gudbo yuusan dib kugu celin oo shaki uusan kugu furin hadalka shiine uu qoray oo ah hadal qabyo cadiifadaysan oo caloosha qof ka hadlaya waayo shiine markaa taa kasoo gudbo waxaan rabaa maantay maansadii aan bilowga in kugu sheegayba ama jawaabtii aan in lahaa dabcan waxaan rabaa qofkii shiine iyo lamid oo kale ah inaan siiyo anoo shiine aan ku xadgudbayn waa wiil walaalkay soomaaliyeed waa fanaan soomaaliyeed waa abwaan soomaaliyeed maadaama uu eryada qoray laakiin waxaan rabaa inaan tan wax ku tusiyo inuu qaldan yahayna aan ku tusiyo maadaama aan qayb ka ahay shacabka soomaaliyeed ee heesaha ay soo saareen oo heestii ugu dambeysay oo maanta soo geliyeen channelka ay kow ka ahayd oo loogu jawaabay ma rabno adiga iyo eryadaada foosha xun iyo qaabkaaga cadiifadaysan oo dowladda soomaaliyeed u weeraraysid dayacan soomaaliyey dabshida ismadiirnaxaay daldalo walaalkee dilaay cadowga isku loodisaay dugaag sidiisii iscuna duruuf isku eegataay dayacan ma dulqaadataay durbaba qarankee dunshaay danteeda iloo saneeyey dawaqan damiirkeed ba'yey guddoon su-aashaydan garo dadkaad la dagaalaysaan dadkiina miyaanay hayn dalkaad ku dagaalaysaan dalkiina miyaanu hayn dantaad u dagaalaysaan dantiina miyaanay hayn dagaalkaad dagaalaysaan miyaad ku dawoobaysaan dadkaad xil u dhiibateen haddaad dood ugu dartaan haddaad madaxdiina cay dushooda ku hoorisaan dayacan ma dulqaadataay durbaba qarankee dushaay hadmay ku dadaalayaan inay dowladnimo corshaan haddaad nabad diidantiin miyaad nolol doonaysaan haddaad nabar doorateen miyaad naxdin diidaysaan intii nabar dooratoo naxdimo u dagaalantaay inagu dooni mayna ee duurkiina la aada taas waxaan rabaa massajkayga ugu dambeeya inaan fanaaniinta soomaaliyeed uga faa'iideeyo aana ku idhaahdo haddaad fanaan tahay sumcadda iyo go-aad huwan tahay ama shaatiga kugu jira waa shaati ummadda soomaaliyeed oo dhan ugu jira hadduu yahay mid wasaqoobana ummadda soomaaliyeed baad wasaqaysa iyo sumcaddaadii magacaad adigu aad lahayd shaksi ahaaneed hadduu dhaqan yahay oo nadiif kuu yahayna waa ummadda soomaaliyeed shaatiga ay qabtoo nadiif ah intii aad cadowgaaga iyo cadowga ummadda soomaaliyeedba aad isku jabin lahayd dadka soomaaliyeedna u jabin lahayd waxaa kaaga wanaagsan adoo wax wanaagsan dadkaaga u soo bandhiga haddii wax ka khaldan yihiin madaxdoodana madaxda si wanaagsan ula hadla ee ma aha qofka inaad toos shaksi ahaan qofkaas inaad u weerarto madaxdaana aad magac disho aanad dulayso ceeb iyo dhaleecayna
aad maxartooda aad ku furto dadkaagana sidoo kale aad fikir qaldan ka dhaadhiciso oo ku aadan madaxdaada aad waxa u wanaagsan haddaad hees soo qaadayso 10 jeer inaad ka fiirsato intaad heesta soo qaadin 10 jeer inaad ka fiirsato abwaanka heesta kuu samaynaya intaada magacaaga iyo afkaaga aad ku bahdilin 10 jeer inaad ka fiirsato waxa ay ka hadlaysa iyo qaabkii u hadlaysa iyo waxa ay toosinaysa iyo waxa ay qaldaysa waa inaad ka fiirsato aad wanaagsan dabcan waayaha cusub waxaad moodaa hadda haddii aan laba horta u kala qaado fikirka arrinta waayaha cusub maan rabaa inaan laba u kala qaado mid waa mide waayaha cusub horta way dameen sibay hawada uga maqnaayeen muddo marka waxaan aniga is oran karaa ama fikirkayga haddii fikir ahaan ra'yigayga haddaan ka dhigto waxaan soo oran karaa yacni heesta ay soo qaadeen ama heesaha isdabayaalka ah oo yacni dhaleecaynta ay soo qaadayaan anu waxaan u gartay maadaama aan kala tagnay oo fanaaniintii waaweyneen oo nol ku yaqaanay oo dabcan waayaha cusub ay waayaha cusub ka ahayd maadaama ay kala tageen aan yacni wax boorka isaga jafi karno ama waayaha cusub aan isaga dhigi karno aan soo qaadno laakiin waxay noqdeen ninkii inta tooreeda qaatay asagoo dabadiisa la dhacay bay noqdeen oo heestii ay rabeen inay sumcaddooda iyo sharaftooda kusoo ceshaan bay sumcaddooda iyo sharaftooda ku dileen taasina waa garaadyarida iyo ra'yi xumada shiina uu halkaa la fadhiyo gabadha heesta soo qaaday walaashay Phyllis waa gabar Soomaaliyeed ma rabo inaan ku xadgudbo dee shakhsi ahaanteeda iyo inaan wax ka sheegana ma rabo laakiin ayadana waxaan rabaa si gaar ah inaan ula hadlo oo ku yiraahdo walaashay Phyllis marka heestan soo qaadaysay adoo hurday miyaa inta lagu toosiyay miyaa lagu yiri hees baa lagu sameeyay qaad maada ogeyn miyaa macna waa iska qaaday waa hurday show hurda laga kiciisa lagu yiri heesa lagu dhibay qaad adoo dabcan hurdadii aan wali ka kicin wajiga dhaqana dabcan heesta waa soo qaad saasa u maleynaya anuu kugu xadgudbay walaashay baa tahay gabar Soomaaliyeed laakiin sidaan ma ahayn inaad u dhaqanto sidaan ma ahayn inaad sumcadaada iyo afkaaga iyo codka macaan Ilaahay ku siiyay aad madaxdaada ugu bahdisho shiina adigana waxaan ku leeyahay walaalkay kulay missionka aragtay waa ku fulay waxay ahayd missionkaagu in ay dad badan ku bartaan dabcan inaad boorkii iyo hurdadii aad ku jirtay inaad ka kacdo oo aad dib channelka aad macnaha usoo cusboonaysiiso views badan heshay aad muhiimadaadu taasna waa gaartay intaas ku ekeysay khayr Allah ku siiyay intaasaan kaaga tegayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan si guud u leeyahay si gaar ahaaneedba isku dhaqan dhar iyo isku diir ahay isku dhiig dhacaan isku diin ahay afku dheemanay dhalashii xigtooy Soomaaliya dhicin